ismaqal daawada meel walba oo naga daawanayso waxaad ku soo dhawaataa warbixinadeena aan kaga hadlayna arrimaha Bollywoodka. haddaba maqalkana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa aktarada Bollywoodka ka xamaashay aan weligooda wada shaqeynin waa rag iyo dumar marka loo eego warbixintani. haddana muddo filmada ku jira waxaana dhici karta siyaabooyin badan aysan u wada shaqeynin sida waqtigoo aan saamixin ama aan hal film loo wada dhiibin iyo in ay iyagoo aan aqoon fiican ka dhaxinin. haddaba aan isla fiirino yaa ku jira liiskani. nambarka koowaad waa Aamir Khan iyo Aishwarya Rai. waa xidiga aan weligooda wada shaqeynin laakiin waxay isku dhawaayeen filmka meelaha oo Aamir Khan la jishay Twitter kana. nambarka labaad Salman Khan iyo Deepika Padukone. laba xidig ayaa mar waxay ku dhawaayeen inay ka wada shaqeeyaan filimka Om Shanti Om laakiin ma suurtoobin in ay wada shaqeeyaan. nambarka saddexaad Amitabh Bachchan iyo Madhuri Dixit. Amitabh ayaa xilligii 80-madii iyo 90-madii wuxuu ahaa xidig filimada door hogaamiye ka ah oo xilligaasna ay Madhuri Dixit shidneed film jelisna ku cusbooneed haddana shaashada kama aysan soo wada muuqan. nambarka afraad Akshay Kumar iyo Rani Mukherjee. inkastoo ay isku waqti ahaayeen oo wanaag uu ka dhaxeeyo haddana weligood mashruuc kama wada shaqeynin. nambarka shanaad Hrithik Roshan iyo Deepika Padukone. inkastoo ay isku soo baxayaan oo haddana hal film in loo wada dhiibay ay tahay haddana waa laba aan weligood wada shaqeynin. nambarka lixaad Aamir Khan iyo Priyanka Chopra. waa laba ka mid ah kuwa ugu caansan Bollywoodka haddana aan weligooda film sameeyo ku guuleysan in ay hal film iskugu keenaan. nambarka toddobaad waa Aamir Khan iyo sidoo kale Shah Rukh Khan ee liiskan ugu dambeeya. waa laba jila ee ugu caansan Hindiya haddana ugu magac weyn guulna haysta. waa ay adag tahay in hal film la isku wada keeno waxaana sidoo kale adag sida filmada ay doorarka u kala qaybsan lahaayeen waayo waa kuwa maqaam sare leh mana ahan wax fudud in la iskugu keeno hal film labadan xidig. inta ayaan ku soo xiriyaa muuqaalkeena maanta haddii aad ka heshana la wadaaga asxaabtaada.